qisada Ibliis waa qisada ugu xun ee lagu baran karo xumaanta, kibirka, diidmada xaqa, taasoo ka dhalan karta cawaaqib xumo. Ibliis ma uusan ahayn malaa'ig. Ibliis wuxuu ka mid ahaa jinniga, wuxuuna muddo dheer ku jiray cibaado ilaa uu gaaray heer uu la joogo malaa'igta. Wuxuu lahaa darajo sare oo Allah u maamuusay, wuxuu ahaa mid la siiyay cimri, cilmi, xasuus iyo caqli. Markii uu Ilaah u abuuray Nabi Aadam calayhi salaam, wuxuu malaa'igtu amray inay u sujuudaan si ay u muujiyaan qadarin, sharaf iyo ixtiraam. Gabi ahaan malaa'igtu idil way sujuudeen markii laga reebay Ibliis. wuuna diiday asigoo iskibrinayo, wuxuuna noqday isla markaa mid gaaloobay. Ibliis wuxuu ismooday inuu ka sharaf badan yahay Nabi Aadam calayhi salaam, isagoo ku jira kibir. Ibliis wuxuu yiri, aniga waxaa ka fiicana asaga, waayo adiga ayaa iga abuuray dab, asagana waxaa ka abuurtay dhoobo. Ibliis wuxuu u maleeyay inuu ka sharaf badan yahay Nabi Aadam calayhi salaam, sababtoo ah asalkiisa waxaa laga abuuray dab, wuxuuna diiday inuu u sujuudo isagoo iskibrinayo. Halkaas ayuuna ku gaaloobay. Markii uu Ibliis u diiday amarkii Alle, waxaa ku dhacay laba arin oo aad u culus. Midda koowaad oo ah naclad. wuxuu yiri, قال فاخرج منها فإنك رجيم. taasoo micnaheedu tahay ka bax jannada, adigu waxaa tahay mid lacnadan. Isla markaana Ibliis wuxuu codsaday in la siiyo waqti ilaa qiyaamaha si uu dadka u fidneeyo. Ilaahay wuu nacladay Ibliis, wuxuuna yiri, naxariisteeda ma helayo adiga iyo qofkii ku raacaba. Qodobka labaad oo ah fogeynta raxmadda Ilaahay. Ibliis wuxuu noqday rajiim, mid laga fogeeyay raxmadda Alle oo haddana la nacladay. Sababtuna waxay ahayd si bareer ayuu u diiday amarkii Alle isagoo iskibrinaya, wuxuuna bilaabay dagaal diimeed oo ka dhan ah bini'aadamka. Wixii Ibliis ku riday nacladda Ilaahay waxay ahayd 3 arrimood oo waaweyn. Tan koowaad oo ah kibirka. wuxuu yiri, waan ka fiicanahay Aadam halkii uu is hooseyn lahaa. Tan labaad oo ah diidmo xaq ah. wuxuu diiday amarkii Alle isagoo og inuu yahay xaq. Tan saddexaad oo ah xaasidnimo. wuxuu ka xumaaday in Aadam la sharfo, wuxuuna u maleeyay in asaga uu xaq u lahaa. Ibliis ayaa waxaa yiri, فقال أأسجد لمن خلقت طينا. taasoo micnaheedu tahay ma aniga u sujuuda mid aad dhoobo ka abuurtay. Ibliis wuxuu ahaa mid aad u cibaado badan, laakiin hal daqiiqo oo kibir ah, hal go'aan oo qaldan ayaa sababay inuu waayo jannada, raxmadda Alle iyo naxariistii Allaba.